saraakiisha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay dagaal gudaha ee deegaanka ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidanka booliska gaarka ah ee gobolka ee loo yaqaan New Police. Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay weerar ku qaaday deegaanada Caato iyo Yeed ee gobolka Bokool ee Soomaaliya oo deegaan ahaan u dhow xadka Itoobiya, iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab sidoo kale gudaha u galeen ilaa iyo 70 kiiloomitir. saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxay ugu xaqiijiyeen in ciidamadoodu ay iska hor imaad la galeen dagaalyahanada Al-Shabaab. taliyaha amni ayaa sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay dileen ku dhawaad 63 ka tirsan ururka Al-Shabaab, wuxuuna qirtay in dhankooda ay ka dhinteen 17 askari oo rayid ah. shabakadda argixisada ee Al-Shabaab ayaa dhanka kale waxa ay faafisay in ay qaarijisay 87 ka mid ah ciidamada Liu Police ee ismaamulka kilka Soomaalida. wararka ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay ka gudbeen xuduudda dalka Itoobiya kadib weerarkii shalay lagu qaaday magaalooyinka Soomaaliya ee ku dhow xadka. ilaxo ogaal ah oo ku sugan deegaanka ayaa xaqiijinaya in ciidamada Liu Police ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay gudaha dalka Itoobiya kula dagaalamayaan kooxda hubeysan. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa warisay in ku dhawaad 100 dagaalame Al-Shabaab lagu dilay howlgallo argoosi ah oo ciidamada Soomaali galbeed ay fuliyeen 24 saac la soo dhaafay. dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Bokool Maxamed Tool ayaa ka hadlay xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan gobolka kadib dagaal shalay ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Liu Police ay dariska yihiin. gudoomiyaha ayaa ka codsaday ciidamada Liu Police inay la tashadaan maamulka Koonfur Galbeed ka hortaga in dadka aysan sharci darro ah ugu tallaabin xadka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay ka sameeyaan dhaqdhaqaaq ciidan. gobolka waxaa saaran godoomin bini'aadanimo oo ba'an oo ay ku hayaan Al-Shabaab. maleeshiyada waxay joojisay in dadka deegaanka ay helaan waxyaabaha aasaasiga ah sababo ku aadan inay diidaan bixinta lacag baad ah. waxaan khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Yeed Cabdisalaan Cumar Duwane. gudoomiye ku soo dhawow, waxaad nooga warantaa khasaaraha inta la eg ee ka dhacay dagaalka Yeed, isla markaana xaaladda markaad qiimeyso intee la eg tahay degmadu, see wax u dhaceen, dagaalku siduu ku bilaabmay, bal gudoomiye noo faahfaahi. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة يد وحوي مالين أربعة دقال باكر دعي نمكن شباب كان بديت كان نصور كوي طبعا كان قرن نبي نصور دقال باكر دعي شعب يعيد أنت كذا حيثا سامين بدن بوجستي دقال كاسمرك وحوي دقال وجيه بدن بوهايو يد كذي لما صورين هالمر بيد يا طبعا صور يملي وشاقة صدق كيلومتر حاجة كونفورت نبي جرته dagaalka marka saameyn badan buu wadanka u geystay. dib badan baa meesha ka dhacay, dhimasho dhacday, dhaawac dhacay, qaxba ka dhacay, dhibaato weyn buu dagaalka marka uu geystay. waxaad iga warantaa gudoomiye, degmada gudaheeda imse qof ayaa ku dhintay? degmada gudaheeda waxaa ku dhintay 2 qof, 2 askari ciidanka anaga ku dhintay. dad shacab oo dhowr iyo 10 waa ku dhaawacmeen oo dumar iyo ciyaal iyo odayaal leh oo weliba aad u daran oo isbitaal fiican aan la geynin. qax badan iyo beero badanna way gaadhay magaalada oo dadkii waxa weeye magaalada waa ka taxeen oo markay ayagoo abaar joogo oo xilligaada ku jira waxa weeye magaalada loo abayeelin lagu ridayo meel walba waxa weeye si iyo hoobi iyo wax la mid ah laba dhacay. waa dadkii qax badan baa gaadhay dhimashada, laakiin annagu meesha annada waxaa naga dhintay 2 qof iyo dhaawac 10 iyo 2 qof ah. waa hagaag gudoomiye, waxaad nooga warantaa khasaaraha ka dhacay dhanka kale ee xadka Itoobiya gudaha intuu leeyahay, bal nooga waran. hadda Caato kale waxa weeye degmada Caato kale ayadana saameyn inta leeg iyo ka badan buu u geystay. waxa weeye qaxa iyo dhaawaca iyo dhimashada way la qabaan haddaysan naga badnayn. weliba isku saacad buu dagaalku dhacay, ataaday gooyeen. waxa weeye noo daba gaadida tahay waxa isgaarsiintii ay maqan tahay oo sidoo kale ay talayn ay waxa weeye soo weerareen meel kasta.
xerihii ciidamada xabadda ka bilaabeen shacabkiina milatiyada la dhaceen dadka deriska nalaha ciidamada deriska nalaha ee dowlad deegaankana waxaa weye dagaalka isagana way la galeen xeryaha marka ciidamada oo hurmaha halka noo jooga oo annaga militariga ah iyo kuwa kale iyo shacabkaba intoo dagaalku waa saameeyey. gudoomiye waxaad nooga warantaa markuu dagaalku bilaabmay uuna ka bilaabmay labada aag caato iyo yeed haddaba sidee ay ku suurto gashay tirada intaa la eg ciidan inay mar kaliya ku gudbaan xuduudda isla markaana ay awood ay ka dagaalamaan gudaha see ku dhacday? waa jirtaa arrintaas nimanku laba qaybood bay ahaayeen qayb gudaha Ethiopia u socotay ahaayeen annaga kamaanan warqabin 45 kilomitir bay ahaatay iyo isku jiraan kala barkooda ay ka gudbeen kolonyo gaadiid culus wadatay ahayd kuwa markii si aan loo dareemin isku marba xabadda iyada way ka dhacday haatana way ka dhacday kolonyada iyada in dhaxda ayay ka baxday tuulooyin 30 kilomitir loo jiro oo gudaha ka tirsan gobolka Afdheer ka tirsan ayay xabadda hore uga sii bilaabeen gudaha ayay sii galeen 130 kilomitir gudaha bay galeen ciidamada dowlad deegaanka kuwii dagaalka qabsadeen mooyaane kuwii kale gudaha ku jiray baa ka hor imaaday dagaalka shalay iyo xalay iyo maanta iyo caaw intaas ayuu socdaa nimanka meel laga bay galeen waxa weeye dowladda deegaanka ayaa ka warbixin doonta oo waana laga booyahay dagaalka laakiin saameyn culus buu keenay saacadaha hadda aan ku jirnaa sida xogta aan ku helayno waa lasoo aftaray gaadiidkay wateen wuxuu ahaa 18 gaari oo dadkii arkay loo xaqiijiyeen ciidankuna ciidan wuxuu ahaa farar badan ilaa 400 askari meelahaas ah nimanka marka waa gudbeen kuwii kale ee annaga nala dagaalamay aata la dagaalamay xeryaha ciidanka new booliska la dagaalamay xeryaha ciidanka Soomaaliya ciidanka militariga federaalka Kenya ana la dagaalamay waxa weeye shacabka la dagaalamay kuwaas annaga waxa weeye nooga khasaaro badnaa oo waxa weeye magaalooyinka saameeyay way iskaashanayeen oo hal ciidan oo iskaashan bay ahaayeen dabcan fikradaha u kala duwanaa oo kuwana gudaha inay galaan kuwana annagana mashquuliyaan bay ahayd kuwa marka waxa weeye khasaarahoodii iyo faa'iidadooduba horey buu naga jiray oo dowladdaas howlan annagana kuwii lala dagaalamay baana dul fadhiyo ilaa iyo hadda aan soo fadhinaa. haddaba gudoomiye sida hadda noo sheegtay inaad soo fadhidaan haddaba halku maraya xal al-shabaab wayna kor fadhiyaan waxa weeye waa noo dhow yihiin insha allah waxa weeye inaan iska fogeyno oo waddanka aan meelaha ka imaadeen ku celinana way naga go'an tahay. maasan tahay gudoomiye kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada yeed Cabdisalaam Cumar Duwane oo nooga warbixinayay dagaaladii warkii ugu dambeeyay nooga soo kordhay xagga iyo caato iyo yeed aad baa maasantahay.